Guddoomiyaha degmada Faraweyne ee gobolka Maroodijeex Cabdisiyaad Aadan Cigaal ayaa shaaca ka qaaday in deegaanada hoos yimaada degmadaasi ay yihiin kuwo ay saameyn badan ku yeelatay abaarta ka jirta deegaanada Somalilan. Guddoomiyaha degmada Faraweyne oo ah degmo maamusha in ka badan 40 tuulo ayaa sheegay in gargaaro biyo dhaamis oo la soo gaarsiiyay dhinacna kaga dhici waayeen baahiyihii biyo ee deegaanka ka jiray. waxaan ka imaanay degmadii Faraweyne kullay waxa ka jirta xaalad abaareed oo aad u baahsan waxa la doonayaa inaan isku tashano dad badan baa wax ka qabtay oo wax badan soo gaarsiiyay oo sheekhu ugu horeeyo jazaaka Allah khayr baan leenahay halkii aad ka soo qaadeen iyo cidii noo keentayna aad bay ugu mahadsanyiin kullay waxaana soo gaaray guud ahaan marka la isku celceliyo deeq biyood oo dhan 86 booyadood 86 booyadood aan u dirnay marka abaarta laga bilaabay ilaa iyo xaruntii Faraweyne booyad walba biyihii lagu shubay ama dadkii shubanayay booyadii dhaqaaqay meeshii qalaleedo ay biyihii ay meeshii maxay ahayn waxba oolin waa abaartaasina waxa waa mid inagu aynu kasbanay halkan waxa inta badan inooga akhriyay quraan ayadaha Ilaahay nagu anfaco sheekhu wuu ina xadiisay in badan baynu wax badan baranaa waxaynu u baahanahay inaynu ku dhaqanno waxa qoomna de waxa kuma dhacaan iyagoo haddii ayna gacmahooga ku kasban masiibooyinka inta badan Ilaahay waliba way noo dhaafaa marka waxaan leenahay guud ahaan aan ka ducaysano taakulada iyo deegaanka iyo biyaha aynu wada gaarsiino